هاي مهردنا ما يدكوا دكتين هنا maxaad kala socotaa dhibaatada lagala kulmo adeegsiga shirkadda Dala Group xilli dadka isticmaala gaadiidka shirkaddaasi ay Soomaaliyihiin xafiiska Hargeysa ayaa waxa uu dhibaato ku hayaa macaamiisha shirkadda taasoo aad moodo in maamulku uu kula socdo ficilada ay sameynayaan shaqaalaha shirkadda. Haddaba haddii aad safrayso oo aad ku sii jeedo Burco iyo Ceergaabo ka taxadir safarkaaga oo adeegso shirkad aad hubtid sida ay ula macaamilayso dadweynaha jidka dheer ku safri doona 11 barkii habeenimo ayaan shirkadaasi waxaan ka goostay 2 tikid si aan ugu safarno magaalada Burco lacagtiina waan u shubnay muddo saacad kadib ka soo wareegtay xilligii gaadhigu safri lahaa ayaa wax naloo sheegay in aanu lacag si aan hore u dirnay aanay naga bixin gaadhigan aanu isaga hadno iyadoo nin gudoomiye ku-xigeenka ka ah shirkadaasi uu noo sheegay in aanu message-ka lacagaha aanu naga hayn hase ahaatee waxa uu diiday inuu hubiyo dhaqdhaqaaqiisa iyo inaanu wax lacaga aan u dirnay in kale maadaama aanu xaq u leenahay in nalaga hubiyo lacag dirinta xilli dambe oo ahayd annaguna safar aanu ahayn waxaanu go'aansanay in aanu gaari kala raacno kadib markii gudoomiye ku-xigeenka shirkadaasi uu noola dhaqmay si mas'uuliyad darro ku jirto intaas kadib waxaanu go'aan ku gaarnay in aanu lacag kala bixin sababtoo ah ma aamini karno mar kale waxaan soo raacnay shirkadda dadweynaha ee dalxiis iyadoo aanu safarka yagiina si dhib yar ku sii wadanay shaqaalaha shirkadda dalxiisna ay noo soo dhaweeyeen si wacan Burco markaanu tagnay ayaanu lacagtii aanu hore Dala Group ay rabtay inay nooga dafirto uga soo ceshanay shirkadda isgaarsiinta Samtel kadib markii Dala Group si badheer ah ay u rabeen inay u qaataan lacagta waxa intaas kadib nala soo xiriiray ninkii diidanaa inuu lacagta hubiyo oo shirkadda lacagta ka celisay una sheegtay khaladkooda ayaa shirkadda ku yiri raaligelin ayaan bixinayaa ee lambarkooda isoo sii waana kan isagoo ninkaasi nala soo xiriiray waxana uu noo sheegayaa in uu naga raali ahaado xalayna uu xanaaqsanaa ay wax ka xumaayeen عروقوا ودال جروب دال جروب هي رسمتل أنا قاعد تغنو إلا واقرتي هاي مهردنا ما يدكوا دكتين هنا markii aanu markaadna maagtay watan niro aranaga baaroorti meelaha iyaga shirkad kale tagaynay watan iska baxnayba laakiin dadka si fiican u dhaqma haddaba waxaanu fariintan aanu idinku soo gudbinaynaa mas'uuliyad darrada shirkadda Dala Group iyo sidoo kale sida ay dadka ula dhaqanto maadaama ay jiri karaan dad kale oo dan yar oo iyagu intay lacagta bixiyaan haddana aan awoodin inta loo hubinayo in ay shirkad kale raacaan si mas'uuliyad darro iyo sidoo kale ka baxsan dhaqanka caadiga ah haddaba fariintan waxaan uga dan leenahay in dadweynaha gaadiidka isticmaala ay iska hubsadaan badqabka safarkooda iyo shirkadda ay raaci doonaan